laba sanadood ka hor bay ahayd markii go'aan ka soo baxay maxkamad hoos tagta waaxda socdaalka ee dalkan Sweden ee loo yaqaano Migrationsverket uu mabda'iyan mustaxiil kaga dhigay Soomaalida dalkan Sweden inay ku yimaadaan qaab dacwo qoysa kadib markii Soomaalida laga codsaday keenista waraaqo aysan jirin wadan ay u doonaan. haddaba imika ayaa waxaa soo baxay go'aan cusub oo ka yimi maxkamadda rafcaanka ee isla waaxda socdaalka ee dalkan Sweden kaasoo u sahlaya qoysaska carruurta leh ee ku sugan Soomaaliya ama dal saddexaad inay la midoobaan qaraabadooda Sweden. xukunkan cusubi wuxuu albaabada u furayaa inay Soomaali badani soo gasho dalkan Sweden ayuu yiri Michael Ribenvik oo ah la taliyaha dhinaca sharciga ee guddi hoostaga waaxda socdaalka. Ribenvik oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in sharcigan loo tafsiiray si ay saqiinimo ku jirto sidii ay ahaan jirtayba marka la eego kiisaska qoysaska carruurta leh khuseeya sida uu yiri. howlwadeennada waaxda socdaalka ee dalkan Sweden ayaa imika eegaya go'aankan iyadoo ay yara adag tahay ama ay degdeg tahay in laga hadlo saameynta uu go'aankani yeelan karo, laakiin mabda'iyan waa mid lagu dabaqi karo xaalka ay Soomaali badani ku sugan yihiin. iyadoo markii go'aankan la eego la oran karo wax badan baa iska bedelay xaalka qoysaska Soomaaliya jooga ee doonaya inay yimaadaan dalkan Sweden. dhibaatada Soomaalida Sweden joogta ka haysatay inay rukhsad deganaan u helaan xubnaha qoysaskooda ee ku nool Soomaaliya ama dal saddexaad ayaa bilaabatay ka gadaal markii ay 2 sanadood ka hor ay maxkamadda waaxda socdaalku soo saartay go'aan Soomaalida lagaga dalbanayo inay la yimaadaan warqado cadeynaya haybtooda Soomaalinimo si ay rukhsad deganaansho uga helaan dalkan Sweden. taasoo waxaan suuragal ahayn la noqotay Soomaalida maadaama aanu dalka Soomaaliya lahayn nidaam dawladeed oo si saaxi ah u shaqeeya isla markaana soo saara dukumeentiyada noocan oo kala ah muddo ugu yaraan 20 sano markaasoo uu qulqulkii Soomaalida iman jirtay dalkan Sweden oo markaa ku dhawaa 9% uu ka hoobtay waxaan ka badnayn eber 100%. go'aankan oo dalbanaya in xiriirka dadka ilmaha isula lagu xaqiijiyo baarista dhacaanka hiddasidka ee DNA-da loo yaqaano oo cadeyn ahaan loo isticmaali doono ayaan khuseyn doonin dadka aan ilmaha isu lahayn laakiin isqaba oo iyaga wali looga fadhiyo inay cadeeyaan inay Soomaali yihiin. Soomaalida ayaa tiro ka dhowr jeer dibadbaxyo kala duwan oo ay go'aankii hore ku diidanayeen ka sameeyay magaalooyinka dalkan Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg oo ah caasimadda labaad ee dalkan looga arrimiyo. iyadoo sanadkii hore dabayaaqadiisina ay dawladda Sweden soo saartay hadal waxoogaa niyad dhis ahaa oo sheegaya in sanadkan bartamihiisa ay dacwooyinkaasi dib u bilaabmi doonaan. Maxamed Xaaji Xuseen Raage, Royal TV, Gothenburg, Sweden.